Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena African Somali Media. Barnaamijkeena maanta waa barnaamijyada xiisaha leh ee kusoo qaadano channelkeena. Waa gabadh $260 ku samaysa lacag gaaraysa $4 milyan. Waxaa idiin soo jeedinaya waa aniga oo ah Xasan Sheekh Maxamed daawasho wacan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe si haddii aad nala joogtayna faafinta waa xaggiina mahadsanidin. waxaa loo baahan yahay inaad xiriir la samayso dadka, waana arrin farxad ku horseedaya ayay tiri Kimbele Berry. hadafka ay ku bilowday inay bixiso casharada dhanka jimicsiga wuxuu ahaa inay dadka isugu keento, gaar ahaan haweenka ku cidloobay magaalooyinka. Kimbele Berry oo 35 jeer waxay markii hore ka timid Australia sanadkii 2014 xilli ay umushay. waxay dareentay cidlo, sidaa darteed waxay go'aansatay inay bilowdo in ay haweenka siiso casharo jimicsi ah. markii aan u guuray deegaanka Hellow ee Ingiriiska waxaan dareemay cidlo, cidna ma garanayn. markaan adiga kaliya aan ku biiri karo wuxuu noqday midda hooyooyinka iyo dhallaanka. Kimbele waxay ogaatay inaysan jirin goob haweenka jimicsiga lagu baro, markaa waxay go'aansatay inay hirgelisay shirkadaas. waxay gelisay $200 oo geni. waxaan doonayay inaan farxad dareemo. haddii aad tahay hooyo hor leh, mashquul ayaa tahay habeen iyo maalin, markaa jimicsigu wuxuu noqday mid wax kasta kulmiya oo aan u baahannahay nolosheen, caafimaadka, xiriirka iyo waxa xiisaha leh. ka hor intuu uusan dunida saameynin fayraska corona, shirkadda waxaa ku xirnaa bil kasta 47,000 oo qof, badanaa haweenka kala socda UK, Australia iyo New Zealand. arrinta kale oo horseeday inay samayso ganacsigan wuxuu ahaa mar ay ahay shaqaale oo ay weysay fursad ah in la dilacsiiyo. waa naxay maalmo ayaan sariirta ku korooynayo waa inaad 24 saac shaqaysa. waxaan u malaynayaa markii aan uurka ahaa in ay horseeday go'aanka ah in la dilacsiiyo. Kimbele waxay hore u taqaanay ciyaaraha qobka ciyaarka. waxay dadaal adag gelisay jimicsiga, marka waxay wax ka dhigi jirtay mid ka mid ah goobaha lagu jimicsado, halkaas oo ay kala timiday fikradda ah in ay samayso shirkad. waxay u sheegtay in fikradda hirgelinta goobta jimicsiga ay ku wargelisay saygeeda. wuxuu ku yiri ma waalantaa. markii ugu horeysay bilowda casharada, Kimbele waxay samaysay jadwal, isla markaana waxay shaqaaleysiisay shaqaale maxalli ah oo ku sugan deegaanka Hellow. hooyooyinku marka ay qaadanayaan casharada jimicsiga waxay goobta la imaanayaan carruurtooda. bilooyin kadib waxaan bilaabay inaan casharo kale ku soo kordhiyo dalab daraadiis. dadku waxay jecel yihiin waxyaabaha xiise geliya. dhammaan lacagtii aan hayo waxaan gelayay ganacsiga. waxaan bixinayay kirada goobta aan ku qabanayay jimicsiga. waxaan soo iibiyay alaab badan. waxaan gaaray heer aanan wada bixin. dhammaan casharada toddobaadku waa 12 cashar ayaan bixin jiray. Kimbele waxay bilowday inay diiradda saarto ganacsiga. dadkii tartanka kula jiray waxay bilaabeen ganacsi la mid ah keeda. waxay haatan bilowday in ay ballaariso ganacsigeeda. haatan Kimbele Berry iyo kooxdeeda waxay tababareen in ka badan 700 oo macallin. waxay haatan leeyihiin 320 studio oo ku kala yaal guud ahaan UK iyo caalamkaba. xarumahaas waxay ka caawiyaan qalabka iyo halka lagu qabanayo casharada jimicsiga. Mark Mullen oo fadhigiisu yahay London ayaa aaminsan in jimicsiga noocan ah uu yahay mid caan ah oo xiise gaar ah leh, isla markaana haweenka ka caawinaya inay bulshada ay ku dhex jiraan. ganacsigaygu wuxuu gaaray sanadkii la soo dhaafay $3 milyan oo geni. Kimbele waxay haatan maamushaa koox gaaraysa 25 uu fadhigeedu yahay deegaanka Hellow. haatan waxay tahay qof madaxa. weli waxay bixisaa casharada. waxaan toddobaad kasta bixiyaa 5 cashir. waxaan jecelahay inaan la wadaago dareenkayga anigoo og maalin kasta in aan dhiirigelinayo haween kale. bishii la soo dhaafay ee April sanadkii hore, shirkaddu waxay casharada ku bixinaysay qaab online ah. toddobaadkii waxay bixinaysay 8 ilaa 7 cashir.